waagaag daawadayaal haatanna waxaan idiin haynaa qiso cajiiba. qisadani ayaa waxay ka dhacday dalka bakistan, waxayna ku dhacday qoys muslimiin ah. hooyadan aad arkaysaan waxay ahayd hooyo aad u wanaagsan, waxayna dhashay hal gabar oo qura ayay dhashay. gabadhan inta ay dhalin ka hor ninkeeda wuxuu ahaa nin ad adag oo dabeecad qallafsan. aad iyo aad ayuun u necbaa in gabar loo dhalo. markii ugu horreysay oo xaaskiisaba ay uur u qaaday, wuxuu saaray kombiyuutarkana wuxuu u sheegay uurka islaantiisa ku jira inuu yahay gabar. taas uusan ku farxin, islaantana wuxuu ka dhaadhiciyey in ay gabadhan iska soo riddo oo ay markaasi isdhaafiso, si ay mar kale nasiibkooda u tijaabiyaan oo ay wiil u dhalaan, maadaama uu wiil uu aad u jeclaa. dhaqankaasi waa dhaqan jiray oo dadka badanaa ka dhex jiri jiray. soomaalida nafteeda waxay ahaayeen kuwa wiilasha jecel, inkastoo haatan gabdhihii wiilasha markii la fiiriyaba ay gabdhihii wanaagsanaadeen, laakiin waagii hore waxaa jiri jirtay in wiilasha la jeclaado. haddaba dhaqankaas wuu jiraa oo dad soomaaliya waxaa jiro ilaa iyo iminka gabar iyo wiil markii loo dhalo wiilka ay jecel yihiin. hooyooyinka gabdhaha dhalana waa lagu nacaa arrintaasi, laakiin sida xaqiiqda ah gabadha iyo wiilkaba waxay ka yimaadaan ninka ayay ka yimaadaan. ninka ragga iyo haweeneyda markay kulmaan labaduba waxay soo daayaan, haweenta waxay soo daysaa wax loo yaqaano sad, ninkana wuxuu soo daayaa wax la yidhaahdo waay, marna noqonaya sad. markuu waay noqdo waxay dhalaan wiil, markii sadka haweeneyda sad kale oo ninka ku darana waxay noqotaa sidaasoo kale gabar ayaa meeshaas ka dhalato. sidoo kale diintan islaamka waxay noo sheegtay markuu ilaahay subxaanahu watacaala u abuuray nebi aadan calayhi salaam in dhammaan bini'aadmigii la abuuray nebi aadan ay dhowrkiisa ku jireen, kadibna qaabiil iyo haabiil markuu dhalay ay ilmihii labadooda u kala qaybsameen. adduunkana sidaas uu ku soo socday, oday walba iyo nin walbana ilmaha uu dhali doono dhabarkiisa ay ku jiraan. naagtana waa haweeney maran oo wax gudaheeda ku jira ma lahan. markii caloosha ay ilmahaas galaan kadib ayaa ilaahay halkaas ku beeraa. gabar iyo wiil wixii ahayna ay islaanta u guursada ay dhalleedna dhabarkiisa ayay ku jiraan. marka xaqiiqda waxa weeye cilmi ahaan markii la baaro cilmiga sayniska iyo cilmiga diintaba in ilmaha ay ka imaanayaan ninka ragga dhabarkiisa. marka ninkan bilaash ayuu islaantan u xagan jiray, bilaash ayuu islaantan ku haysan jiray. ragga soomaaliyeed oo nafsadooda naagaha haystaan ama xaasaskooda ku dhegan oo yidhaahdaan gabar ay dhashay kula dagaalamo ama ku fura, way qaldan yihiin. maxaa yeelay asaga ayay ilmaha ay ka yimaadeen. ninkii wuxuu sidaasi ahaadaba haweentii uurka lahayd markay aragtay ninkeeda inuu dhibaatooyin aad u fara badan uu ku hayo, waxay go'aansatay in ay noloshiisa ay ka haajirto inta waqti oo gabadhan ay soo dhalayso. magaaladuu degnaa iyo meeshuu ku noolaa way ka gurtay, meel kale ayay tagtay. gabadhii uurkeeda ayay ku adkaysatay, kadibna sidaasi ayay gabadhii ku dhashay. hooyadii gabadha dhashay dib uguma aysan laaban ninkii ay dhibaataday ogeed ee kala kulantay. nin kalena waxay go'aan ka gaartay inay guursanin, oo waxay u qaadatay nin walba sida ninkan uu xun yahay oo kale inuu xun yahay, nin kastana uu yahay nin gabdhaha nacayo. waxay go'aansatay gabadheeda inay korsato. dhibaato aad u badan ayay gabadha ku korisay. waa hooyo, ma shaqaysato, wax uma haysato, qof garab siinayo ma lahan, ehelkeeda lama joogto. marka dhibaatooyin aad u badan iyo nolol cariiri ayay gabadhi ku korisay, ilaa gabadhii ay iskuul ay ka dhammayso, dugsiga hoose dhexe, dugsiga sarena ay ka dhammayso, oo ilaa heer jaamacad ay gaarto. hooyadan dhibaatadan soo martay oo gabadhan ilaa iyo maalintii caloosha gelaysay ilaa iyo maanta dhibaatadan ku jirtay, waxay ku fikiri jirtay mar uun gabadheeda inay dhibkan ka saari doonto. jaamacadda markay ka baxda kadibna shaqooyinka ay rajaynaysay in ay gabadheeda bilaabi doonto, nolol fiican ee hooyadan ay geli doonto. hooyo walbana sidaas ayay ilmaheeda u rajaysaa, oo waxa ilmaha loo koriyaa oo wax loo baraa oo ilmo wax qabsan kara looga dhigaa. waxa weeye waalidiinta markay tabar yaraadaan, ilmihiina waagii hore wuu tabar yaraa, waalidkii ayaa isbedelaya oo wuxuu noqonayaa sidii ilmaha ay u tabar yaraayeen inuu mar kale asaga u tabar yaraado. markuu sidaas u tabar yaraado in garab uu ka helo, oo markaas uu wiilkii ama gabadhii ay waalidkii ay u noqoto mid wax qaban karo. rajadaada way hungoobi kartaa, rajada aad leedahayna nasiibka ayaa ku caawin karo, wuxuuna kaa dhigi karaa mid wixii aad ku fikiraysay iyo wixii aad ku riyoon jirtay kuu rumoodo. mararka qaarkoodna nasiibkaaga ayaa markaasi kaa helin karo, oo waxyaabihii fikirkaaga ama waxyaabihii aad ku riyoon jirtay waxay noqon doonaan wax aan kuu suurtogeli karin. hooyadii waxay sidaasi ahaataba maalintii dambe
gabadhii waxay la saaxiibtay ama saaxiib ay la noqotay oo jaceyl uu dhex maray wiil ka soo jeedo qoys faqri ah, asagana faqri ah, waxbana aan baranin oo markaasi ku shaqaysto waxyaabaha la yiraahdo alyoom. Soomaalidu waxay u taqaanaa alyoom. Alyoom waxa waaye qofka aan shaqaysanin, farsamo aqoonin, subaxii soo kaca, magaalada iska soo gala, dukaan aan lahayn, meel uga shaqeeya lahayn, aqoon iyo cilmi aan lahayn, alyoomkiisa ku dadaalo. Maanta maxaa heshaa? yaa wax u xamaashaa, yaa dalaal u noqotaa, yaa wax u sheegtaa. alyoomkaasoo ninka ku noolaa, ninkaas ayay saaxiib la noqotay, waxayna u qaaday jaceyl xaddhaafa ayay u qaaday. dumarka sidiisaba kulama tashtaan. waalidiintuna waxay jecel yihiin in meesha ay rabaan gabdhahooda ay u rabaan ama wiilashooda ay u rabaan inay maraan, laakiin waxa ilaahay qadaro ayaa mar walba soconayo. inkastoo dadaal loo baahan yahay bini'aadmiga inay dadaalaan oo ay fikiraan, haddana mararka qaarkood waxaa dhaco waxyaabo qaldan. gabadhii waxay sidaas ahaataba, hooyadii waxay ka warheshay gabadheedii in ay saaxiib la tahay oo jaceyl aad u weyn ay u qaaday oo mustaqbal inay ka dhigato rabto nin aan waxba haysanin, faqri ah. asaga keligiis faqri maahane, qoyskiisa hataa waa faqri oo markaasi waxba ma haystaan. taasi markay hooyadii ogaatay aad ayay u murugootay. gabadheeda ayay wacday, wayna la hadashay. hooyo waxay tiri arrin aan jeclayn inaan kuu sheego ayaan kuu sheegayaa. mar alla markii aan uurkaaga qaaday, aabbaha ma uusan jeclayn inaan ku dhalo, oo aabbaha ku dhalay wuxuu jeclaa inaan wiil u dhalo. markuu ogaadeen inaan gabar uur u leeyahayna wuxuu go'aansaday inaan unu soo rido oo aanu ku dhalin. taas ayaan u adkaystay. gurigiisii noloshiisa waa ka soo baxay. dhibaato fara badan ayaan soo maray intii aan uurkaaga aan hayay. wixii ay saas ahaataba, uurka markii aan ku dhalay kadib waxaa iga sii darnayd dhibaatadii kale aan kala soo maray korintaada. korintii ay dhibaatadii kala soo marto dhan ay uga sheekaysay iyo siday wax u soo bartay ilaa heer jaamacad inay gaarsiisay, ayadoo aabbana garab ka helin, qof kaloo bini'aadamina aan garab ka helin. laakiin maanta waxaan jeclaa ayay leedahay hooyadan in aad noqotid qof jaamiciyad ah oo cilmi leh, isla markaasina xafiis weyn oo dowlad aad fadhiisatid ama madax aad noqotid. anigana maanta aan nolol fiican ku noolaado, adigana ilmaha aad dhali doontid ay nolol fiican ku noolaadaan. meesha aan halkaas kula rabay ayaa wiil faqri ah oo waxba haysanin, oo shaqo lahayn, oo aqoon lahayn, farsamo iyo waxyaabahaas lagu shaqaysta aan aqoonin, aad saaxiib la noqotay oo noloshaada aa u hebaysay, weliba jaceyl oo aad u weyn aa u qaaday. anigana wiilkaas kulama rabo inuu ku guursado, maxaa yeelay noloshii dhibaatadii aan soo maray oo adi aan kaa soo maray, ma rabi inaa adigana ilmahaada noloshaasoo kale aad la marto, xataa haddii aan aniga waxba kaa helin. gabadhii markay hooyadeed hadlaysay oo waxyaabahaas uga sheekeynaysay, aad iyo aad ayay u murugootay. indhaheedana ilmo ayaa ku soo istaagtay, ilaa markii dambe ee oyso. wax ay samayso ayay garan weysay. hooyadeed waxay u sheegtay warkeeda inay qaadanayso, wax alla waxay kula talisana ay qaadanayso, laakiin jaceyl aad u weyn ayaa haya. ninkanna meel ay ku dhaafto ma garanayso, oo jaceylkeeda ayaa ka xoog badan. marka waxay doonaysaa wiilkan inay guursato, asagana mustaqbal ay u samayso, waxna ay barato, gurigeeda iyo hooyadeed iyo reerkeedana ay mustaqbal u samayso. siday arrintaas ku suurtagelayso ayaan la ogeyn. adigana daawanaya, ra'yigaaga ayaa inoo dhaafi kartaa. bal maxaad kula talin lahayd gabadhaasi haddii ay talo ku weydiisato? oo ku mahadsantihiin daawashada fideogan. haddii aad ka heshay, fadlan sheergaray si ay dad kale uga faa'iidaystaan, isla markaasina subscribe inoo saar janalka si aad la socoto muuqaalada iyo barnaamijyada cajiibka aan idiin soo wadno.